السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوليال soo dhawaada waxaanu barnaamijkan ku gurmagoyn doonaa inta uu socdo xaaladda cakiran ee magaalada Kismaayo iyo loolanka u dhaxeeya musharaxiinta sheegay inay biri doorasho qabsan doonaan oo ay ka mid yihiin sidoo kale musharaxiin cadcad oo magaalada Kismaayo ku sugan iyo sidoo kale waxaanu eegi doonaa doorashada Axmed Madoobe uu sheegay in uu maalinta biri qaban doono. waxaan sidoo kale dib u milixsan doonaa bal Axmed Madoobe waa kuma iyo taariikhdiisa kooban inta laga xasuusto. haddii aan ku bilowno magaalada Kismaayo waxaa indhawaale ka taagnaa khilaaf xoogan kaas oo u dhaxeeya Axmed Madoobe Kenya oo dhinac ah iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya oo dalka mas'uulka ah. Axmed Madoobe taariikhda cad ee lagu xasuusto waxa ay tahay inuu ka mid ahaa ururkii maxaakiimta Islaamka oo ka howlgali jiray bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya markii dambe se u xoobsiibtay ururka Al-Shabaab oo taariikhdooda aad wax xasuusataan. bal dib aan u yaro jalleecno Axmed Madoobe oo ka waramaya xaaladii ururada uu ka soo shaqeeyay una waramaya Haroon Macruuf iyo sidoo kale asaaskii Al-Shabaab. dhalinyaradu waxay bilaabeen inay cududooda mideeyaan ayna samaystaan hoggaan rasmi ah. bishii August 2006 ayaa horjoogayaashii mucaskaraadka iyo saraakiishii sare ee jihaadiyiintu ay u arkeen in la soo gaaray xilligii ay urur ahaan u dhismi lahaayeen. wakiilada 4 qaybood oo siyaabo kala duwan ugu jiray maxaakiimta Islaamiga ayaa isugu yimid magaalada Muqdisho si ay u dhisaan dhaqdhaqaaq cusub. 4taasi qayboodna waxay kala ahaayeen 2 mucaskar oo xoog iyo cududba ku dhex lahaa maxaakiimta Islaamiga ciidan ahaanna u dhisnaa iyo 2 garab oo ka soo go'ay maxkamadihii qaabka beeleed ku salaysnaa ee maxaakiimta Islaamiga. garabka koobaad waxa uu ahaa mucaskarkii Salaaxudiin ee magaalada Muqdisho ee uu horjoogaha u ahaa Axmed Cabdi Godane. garabka labaadna waxa uu ahaa mucaskarkii Raaskambooni oo uu horjoogo u ahaa Sheekh Xasan Turki. labadaas mucaskar waxaa ku soo biiray garabyo ka tirsan 2 maxkamadood oo Islaami ah oo kala ahaa garab ka mid ah maxkamadda Islaamiga ee degmada Yaaqshid iyo maxkamaddii Islaamiga ee Ceelgaras ee gobolka Galguduud. wakiilada 4taasi qaybood oo gaaraya ilaa 30 ayaa ku shiray guri ku yaala magaalada Muqdisho inta u dhaxaysa warshadii baastada iyo hotel Ramadaan. waxaana halkaasi lagu yagleelay urur ay leeyihiin 4taasi qaybood waxaana loo bixiyay Al-Shabaab. waxaa halkaasi lagu doortay hoggaankii ugu horreeyey ee rasmi ahaan shabaab ku yeeshaan. dadkii shirkaasi joogay waxay ii sheegeen in halkaasi lagu doortay markii ugu horreysay amiirkii ugu horreeyey ee uu yeesho ururka Al-Shabaab waxaana loo doortay Ismaaciil Maxamuud Maxamed oo ku magac dheer Caraale oo ka yimid dhinaca mucaskarka Salaaxudiin. mucaskarka Raaskambooni waxaa la siiyey ku-xigeenkii amiirka Al-Shabaab waxaana iyagu ay jagadaasi siiyeen Sheekh Maxamed Axmed Islaam Sheekh Axmed Madoobe. Sheekh Axmed Madoobe oo joogay madasha lagu aasaasay Al-Shabaab ayaa iiga waramay wixii lagu wada hadlay. anaga Kambooni markaa aan filayo dadka ugu sii firfircoon baan ahayn qaybihii dagaalamayay ayaa waxay noola yimaadeen fikir ah inaan midowno oo anagu aan isu keenno fikir ah inaan qaadano system gooni oo anaga isku xiran oo maxaakiimtaan ay leeyihiin. marka dad badan baa ku jira kuwa waxaa ku jira manhajhaan caliid ahaan dirsannaha iyagoo markaas ashaaciro iyo saasoo kale noocaasa ku waxaynaya. adi markii dambe cadaadisyo badan oo yimid waxay noqotay inaan labadanadii group aan wada fadhiisano fadhi dheer oon gallay kadib yaa waxaan ku heshiinay inaan system gaar ahaan markii dadkii dhalinyarada ah ee markaas ishaarayay inay dad system jihaadi ah oo ka baxsan sistamyadan kale ee iska socda inay yihiin inaan ku midowno oo aan urur markaas dhisano. ururkan hadda magacaan ay qaatay Al-Shabaab aanu qaadanay. markaas oo nin Ismaaciil Caraale la yidhaahdo oo markaas Bakistaan ka yimid arday ka ahaa ay keeneen la yidhaahdeen waxaan doonaynaa inaad mas-uuliyadda na siisaan oo ninkaasi uu noqdo mas-uulka xarakada idinkuna reer Kambooni aan naagta iyo mas-uulka shuurada ay yeelataan. sidaasaan ku heshiinay. Ismaaciil Caraale markaa uu noqday ninkii ahaa mas-uulka ururkaas ka noqday. aniguna waxaan ka noqday ku-xigeen baan ka ahaa. xasan cabdullahna wuxuu ka noqday shuurada. marka waxaa maqla in lagu aasaasay guri ku yaala Muqdisho inta u dhaxaysa caymiska iyo warshada baastada oo la dhihi jiray Baytul Wuxda. sax miya? ma ahayn gurigaan fadhiyay wuxuu ku yaalay inta u dhaxaysa ex control iyo meesha la yidhaahdo meesha hotelkii Ramadaan lagu kala Ramadaan. Baytul Wuxda guri loo kaleysnaayo kookoola kasoo horjeeda lagu shiri jiray. waxaan kaloo ku sheegaya waxyaalaha aad cajiibka u ah. marka aniga iyo Ismaaciil Caraale lama magacaabay yaa wuxuu in Cabdigabeeleed waxaan u baahannahay waan igu iibinayna oo maxaad nagu iibinaysaa isqariya yaan laydin arkin qiimo yeesha. qofka 3 bilood baa la ballaminaya. maxaa lagu ballamin? waxaa weeye inaan qofka la aro qofka casiis uu noqdo oo
waradani maxamed wasfiisi sida uu ahaa mas-uuliyadda oo qaadaysa dadkina aan iska qarin maya waxa weye dadku marka lagu waayo aragtida lagu diido qadarin bay yeelanaysa waa waxyaalaha hadda isaga uu ku dhaqmayo oo waxaa 2006 anaga tan ahaan nagu soo jeediyeen sidaas yeelo waxaan isleeyahay mana aha shay diini oo nabi alayhi salaatu wasalaam saxaabadiisu leen dhex joogay waxna la oran jiray dhex fadhiyi jiray markaad ku laabato shirkii lagu aasaasay ururka hogaankii maxkamadaha laguma marti qaadin soo ma hogaanka maxkamadaha waa dadka durayaan bay kamid ahayn oo mesela ay leeyihiin kuwa shaaciro wey qoladaasi kuwa suufiye kuwa sidan inta kale oo dhan wax la durayay buu ahaa laakiin aanan annaga laftirkeeda markaa isku waafaqsanayn si dhaba way ogaayeen in meesha wax badan socdaan laakiin maynan ogeyn ama laguma marti qaadin ama si dhaba looguma sheegin wax noocaasoo lagu heshiiyey sheekh axmed madoobe waxa uu ii sheegay in xilligaasi al-shabaab ay qorsheynayeen inay imaarad islaami ah kaga dhawaaqaan koonfurta soomaaliya taasi oo ka madax bannaan maxkamadaha islaamiga waxaa dhacday markaa haaruuno markii aanu ka soo baxay dagaalkii kismaayo aan soo galay kismaayo aanu nimid waxaa lasoo diray guddi ka tirsan maxaakiimtii oo in cabdigodoon oo markaas salaaxudiin ku galay siniinta maxaakiimta oo ahaa xogeyaha maxaakiimta islaamiga ahayd dadkii hogaaminaya 9 la keenay waan wada hadalnay waxyaalaha gariibka waxaa ka mid ahaa guddiga waqtigeedu la socday intuu ka yimaado habeenkii hore inaan anagu dood iyo isku hayno oo aan isweydiinayo waxa uu ka doodaya kana ay tahay meeshaan iyada hadda magaala naga awood ciidanka ugu badan reerka amboori iyo salaaxudiin markii la yiraahdo aan system dhisan imaar islaamiga halkan ka dhiso aan ka yeelo wax badan oo noocaas oo kala waxaa xasilida marka xiliga maamulka gobolka uu jiray ee la dhisay waxaa maalintii dambe ka war helay in dad la qabanayo magaalada gudaheeda habeenkii dad baa laga baxay teel baa laga baxay sheeko badan oo noocaas oo kala arrintii aan raadiyey ibraahim xaajaama iyo nin yar cabdullaahi yaro la yidhahdo la shaqeynayo gruub noocaasa marka waxaan ka war helay inay nooc amni ah ay u shaqeynayaan oo ah inay dadkii lala baxayo waxyaalo la weydiinayo dhibaato kale magaalada gudaheeda ay ka wadaan taasaa markaa waxay sababtay inaan iyagii laftooda magaalada u sheegay inay ka baxaan sababtoo ah wixii maamul baanu lahayn waxaana dhibaatada ugu badan ah inaad adigu maamul meeshii ka tahay summadii adigu ay gacantaada ku jirto haddana adiga intaad afka soo duubato aad wax sirayso oo qof xadayso oo qof aad kari karayso inaad intaa u yeedho maxkamad istaajiso sharciga lagu qaado dembigiisa aad ku fulin karto haddii dil loola hata aad ku fulin karayso haddana in dadkii nooca argagaxana loo geysto wixii in ay noqoto wax iska adiga aad xadayso maamulkaaga xadayso haddii aanu intaa kaga nimaano axmed madoobe taariikhda uu kaga warramaya al-shabaab iyo asaaskeedii iyo ururada islaamiyiinta axmed madoobe oo jubbaland maamulayay in ka badan 7 sano ayaa doonaya in mar kale uu hogaamiyo jubbaland oo hadda uun magacun u taagan maadaama inta badan jubbaland iyo goobaha iyo deegaanada ku dhow ay ka taliyeen ururka al-shabaab axmed madoobe ayaa 7 sano in ka badan waxa uu ku sugnaa magaalada kismaayo iyadoo sidoo kale 3 gobol ee jubbaland ay ka kooban tahay gobol kamida iyo bar ay haysato kooxda al-shabaab mara jirin wax mataqaana isku day uu sameeyay axmed madoobe inuu xoreeyo deegaanadaasi oo ay ku jiro caasimadii jubbaland maadaama hadda kismaayo ay tahay caasimad ku meel gaar ah axmed madoobe intii uu magaalada ka talinayay waxaa jiray gabood fallo sidoo kale ka dhacay oo ay geysteen ciidamada uu xukumo iyo dagaalo toos ah u dhaxeeya dadka shacabka ah iyo axmed madoobe oo dhinaca dowladda Kenya oo axmed madoobe dabada ka riixaysa ayaa doonaysa in jubbaland ay ku darsato dhulkeeda iyadoo hadda uu khilaaf xoogan dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Kenya uu ka dhaxeeyo taasoo ku saabsan badda Soomaaliya oo Kenya ay sheegatay haddaba su'aasha isweydiinta badan waxay tahay shalay markii axmed madoobe khudbad ka jeediyay hoolka golaha wakiilada waxa uu sheegay inuu jubbaland dib u xoreyn doono laakiin 7 sano uu maamulayay magaalada kama uusan bixin waa tahay haddii laakiinse berri subax ee doorasho ay ka dhacday magaalada Kismaayo oo la sheegay 2 doorasho ay ka dhici doonaan su'aashu waxay tahay axmed madoobe xagee uu ka talin doona maadaama dowladda